In diyaarad drone ah oo ay leeyihiin ciidamada gumeystaha Israa'iil ay dul heehaabto hawada marinka Gaza ma ahan wax la yaab leh, balse diyaaradan aad u jeedaan waxay fulisay howlgal gaar ah. Muuqaalo uu telefishinka Al Jazeera ka helay diyaaradan iyo xogo la yaab leh oo ku saabsan howlgalka ay ka fulinaysay qaybo ka mid ah marinka Gaza ayaa ah mid argagax leh. Saraakiil ka tirsan guutooyinka Saraya al-Qudus oo la hadlay warbaahinta Al Jazeera ayaa xaqiijiyey in sirdoonka muqaawamada maalmo ka hor ay ku baraarugeen in laba ka mid ah diyaaradaha droniska Israa'iil oo xambaarsan dhowr caag oo aan la ogeyn waxa ku jira howlgallo gaar ah ay ka fuliyeen deegaanka Tufaax. Diyaaradahan ayaa howlgalkan bilaabay 6dii subaxnimo waxayna bilaabeen inay caagaga ay wadeen ay dhigaan goobo cayiman oo xaafadda Tufaax ee bariga Gaza ka tirsan. Waxay halkaas dhigeen ilaa 17 caag si gaar ah waxay ugu dejiyeen dhowr guri oo halkaas ku yiilay oo burbursan. Xogaha iyo macluumaadyada ay heshay warbaahinta, saraakiisha muqaawamada ayaa ku sifeeyey in wakhtigaas gaar ahaan subaxnimada hore ay droniska gumeystaha ku soo beegaan inay caagaga aan la ogeyn waxa ku jiray markii hore ay halkaas dhigaan ay tahay qayb muhiim ah oo howlgalka ka mid ah. Marka laga qiimeeyo dhinaca militariga, in wakhtiga hore ee subaxdii ay yaraynayso in sirdoonka muqaawamada ay ku baraarugaan howlgalka sirdoon ee ay fulinayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, balse siday moodeen ma noqon oo sirdoonka muqaawamada indhahooda waa kuwo had iyo jeer soo jeeda oo aan hurdin. Isla markii sirdoonka muqaawamada ay ku baraarugeen dhaqdhaqaaqa diyaaradahan, waxay fariimo u direen wakiiladooda ku sugnaa goobta, waxayna ka dalbadeen inay si degdeg ah u gaaraan goobaha ay labadan diyaaradood ku daadiyeen caagaga. Markii ay labadan diyaaradood isaga tageen goobta, sirdoonka muqaawamada ayaa isla markiiba gaaray dhismihii ay caagaga dhigeen, waxayna soo qaadeen dhammaantood sida ka muuqato sawirrada. Wakhtigaas muqaawamadu weli ma ogaan waxa ku jiray caagaga. Waxaa lagu wareejiyey injineerada ku takhasusay arrimaha kiimikada iyo hubka, waxaana markii dambe la ogaaday markii la baaray inay ku jiraan maadooyin samayn kara qaraxyo aad u daran. Laakiin wakhtigaas diyaar uma ahayn in la qarxiyo. Waxay u baahnaayeen dadaal iyo aqoon dheeraad ah si loogu beddelo bambooyin ama miinooyin si loogu isticmaalo howlgallo gaar ah. Sida aad sawirkan ka arki kartaan, farta ku qoran waa luqadda Cibraaniga. Waa maadooyin mar dhow uun la sameeyey, waxayna shabahaan maadada C4. Sidoo kale, sida aad sawirkan ka aragtaan, caagga waxaa ku dheggan qoraallo digniin ah oo ku saabsan inay yihiin maadooyin dareere ah samayn karana qaraxyo daran. Caag walbana waxaa ku jira maadooyin ka kooban 10 kiilogaraam oo waxyaabaha qarxa ah. Saraya al-Qudus ayaa sidoo kale sheegtay in labada diyaaradood maalmo kadib ay isla goobta ku soo laabteen, halkaasna waxay dhigeen dhowr caag oo kale oo dheeraad ah. Waxaana la aaminsan yahay inay ahaayeen maadooyin kale oo ka dhinnaa maadooyinkii hore si loogu diyaariyo in la isticmaali karo. Maadaama diyaaradahan ay ku rakaban yihiin kaamirooyin si toos ah muuqaalada iyo sawirrada ugu diri kara qolalka howlgallada sirdoonka gumeystaha, waxaa sirdoonka Israa'iil u caddaatay in caagagii hore aysan oolin meeshii ay dhigeen oo la qaatay. Isla markiiba waxaa soo duushay diyaarad dagaal. Waxay halgantaal ku dhufatay gurigii la dhigay caagaga si uu u sameeyo qarax aad u weyn, balse taas ma dhicin. Waxaana sirdoonka gumeystaha u caddaatay oo ay hubsadeen in caagagii ku jiray maadooyinka qaraxa ay gacanta u galeen xoogaga muqaawamada. Israa'iil iyadoo taas ka duulaysa ayay duqayn aan kala soc lahayn oo safmar ah waxay ku ekaysay aagga oo dhan, balse wax natiijo ah kama gaarin. Saraya al-Qudus waxay kaloo sheegtay in injineeradeeda ku takhasusay arrimaha maadooyinka kiimikada ay ku guulaysteen inay maadooyinkaas ka faa'iidaystaan una beddelaan miinooyin iyo bambooyin si ay ugu bartilmaameedsadaan isla ciidanka gumeystaha.